أرن أنا هورا لوجا بران كفتن كسياسة ده لكن دتك أقول نقون كرية دجنين يينا وحسيه وقاعدين صح والله قاسي هورتكو هي إذا مع الشباب وما لكم إذا الصومالية نحمرية أو كفول له ما لا أنت المام دونه أي سيرت عين كاسة إنه قبل برنامج كنا أنا هذا قد قريت دونه أي واحد ربعين كوسو قبل سيد هربان تذكر داون يقول بلغ هذه كوحدة الشباب أو دول أي مرين يقول جورية أنا ربوا إن عندنا سيدات كي جالسينه وصح كوحدة الشباب أفور ما لا يلا يصور المال ضد ترفر بدن أي كل عين وإذا ماذا كنت لنا صح يمكن مش ولو تاجي هاي أن هذا بحري السقدي ده أي إذا ما جورية أو الشباب أو بورتي كيمي أي صار دحمرين دول أمد جانو لنا أرجعوا أنا لا أجا ما شاء الله هذا هدفتمو أي الوارك سيدتنين وآله بيسن وكحل الشباب أي دد رمية ويدي ما شاء أي أرجع كحته أرجع وصعبة بالله نجا وحرقنا هي أن دبتنا لنعب كمرين دقمة هي ضد بامرك سو أركي الله هلين وإدارشين كويدين هي نمكي بابور باوتمي دبتنا لنع أرجعوا أي أفكسرين أي أفكسرين هي نمكاسي waxaan uga digaynaa ummadda deegaanka soo dhani in ay standby ay galaan oo ay ka feejignaadaan in maamulka Soomaaliland especially uu la socdo dhaqdhaqaaqaas oo ah dhaqdhaqaaq aan la dhayalsan karin oo dhibaato keeni karaya xogta dhabta hadii aan sheego waxay u socdaan oo ay tagayaan meel la yiraahdo beer burco xagga ka toosan marka buuraha golis ee taxan dhinaca sanaag eergaabo أي كسم يصنع فريسمو waxay kala tagayaan beer meesha la yiraahdo sida macluumaadkan sirta aan ku hayno cidna ma dilin cidna ma maagayaan laakiin waxay doonayaan meel ay degaan in ay fadhiistaan waxay muujinaysaa in khilaaf uu ka taagan yahay iyaga iyo dadka deegaanka galgala marka in qayb kamid ay soo guurto ayaa meesha ka muuqata marka dal la fasiro socodka caynkaas habka ciidan أن ذاتك إيريدا جوجا الشعب كي اسمه دفاع كريان وماها إذا مواد قرية آكيا وست آكيا بستان هي مركا ده عيدا هيست بكور تكر طلع وساسة إذا ما داسي إلى ستة تنقف وهو بيسن أي أمك اللي أوجيه وحكود بتشرب كوكرة وكون مركا عماش ستة كان أي ينكدب أي مدونا وحن يسن دونا عد هوني هدف تمشوكته oo dadkii soo arkay ama gabadhii soo aragtay mid kamid ah iyadoo la joogtay oo magaceedana aynu qarin doono si aanay dhibaato ugu iman laakiin codkeeda si dadku ay u rumaystaan aynu u soo gudbin doono marka bal aan u soo gudbiyo haweenada way anagu xalay markii aan yara jiifsanay oo tobanadii ahayd baa gabadhu daysa magaalada timi ay tin nimanka hala kale marayaan waana rag haddaan qiyaasnay ilaa 8 marka warkii aan qasti gabadhii nimankii bay ku soo dhaxdaaday nimankii waa la kala yaacay meesha hub lagu ma haysto raggu hub ma haysto nin aan hub haysanina dagaalami maayo oo afartii qoriyo la hayay nin walba ciidamo iyo dhul baa lala aaday waa tidile ciidamayn jiray oo afartii huwa daqa afartii qoriyo haray waa wala walba meel baa meeshii la hadba furin oo la joogay bay la tagtay hadday la tagtayna de maxay haytay meesha waxaan joogaa horta hadaftimo waxa jooga waa ciyaal iyo dumar yaa faraday oo kicii waay ragii waa ka tagay waa in dhooftay iyo in xeebaha jirta iyo in hargeysa taagan iyo in xamar taagan iyo inta afar kaleena waxa joogaan la baran la boosaaso horta waxa jooga hadaftimo waa dumar iyo caruur xaafadina waa maran tahayba xaafad waxa u soo hoyda marka toban guri dhaafsid hal guri lagu jira waxa xaafadi waa cilla waa laga wada dhoof marka horta dhibaatadaasi waa jirtaa mid kale waxa la idin ragii goorta yaaceen oo maxay kula hortagaan nin hubaysan oo bombadiisito oo qorigiisito oo baadkiisito de wax walba sita lama dagaalama kartid alqasti nimanka hadaan lu darninay nimankaasi waxa weeyaan kullu waa niman reer waqooyi ma aha nimankii koonfurta
waayo sababta baabuur baa ka daba waayo marka waad maqlaysaa warka Soomaaliya baabuur baa markaa nimanka u timi oo qaaday ayay gabadhan leedahay waxaan markale uga digaynaa dadka barnaamijkan daawanaya ee ku dhaqan areadaas laga sanaag ilaa togdheer in ay ka feejignaadaan oo ciidamada ammaanka ay waliba Soomaaliland ay soo gudbiyaan haddii arkaan ciidamo ama dad wada socda oo hubaysan oo fara badan oo ay ka shaqeynayaan haddii arkaan in warbixintaas aanay guryahooda la tegin oo la aamusin ay markaba u gudbiyaan